الحمد لله رب العالمين. هذا خير طلي فرقان. ماشي نشوفنا وميل حريها بوليسكا كمدة فوقتا اللي يرادو صدحات. ماشان أنا كم عمل هاي ربيت كجارهان حافظ على الليل. ما حرواينا كول بحيو إن هو الجلاد أيضا قادان. هو قادان دينا عدوه يدينا أمنية يدينا عن مقادرات. وحن هذا ينجوه الموضوع وحن أمرنا يا واحد اللي على حشيشة وحيابه من دورياش يقف بني آدم كان. عرفتي سيحس كيس لا واحد بدك بدله. سيدا خمر ذا أو كله حشيشة ذا أو كله يوح كستون من دوريا وعن لا تجعلنا. إن حالي مرة هيد إن صدقي ساعة إلى أفرتي ساعة. إن ذاك الشعب كون بقول كيو بقول مهتنين ريكس مايو. يانصو عايش أنا يصور عن حافظ اللي يجادو إن بركة أمام إيش اللي يجادو إن حافظ اسمه خرجة وحنقول هذا ضد حشيشات وحيابيه خلدنا لما رضنا نقول رأيها حيابيه خلدنا يعني ماشي كوي نابي نقول يعني وان هون قال لي سديد دقق وعرض أكيزين فان ماشي هكو سوقا أنا وهذا أنا عيدا كبوليسكا أما عيدا كأمنية مجالات كشقية واحد حرير توصل علينا هذا الخيط كعب سكوا هبون وين ولا شقية مبطي وبقولون قم حرير هذا الفكس مايو سيدو وناكسن إنه ولا شقية يعني ذلك نوع سواء سواق قبلني أنا كشروع ضيّضة أما برامج كنا لو جبها هي مرة والوحوية آخر إلى تنسع جدود بندق كمان كان سواق قبلنا هينا وحنا نقول بنا محكمة وطلابة أي كقاعدة أيضا وطالع لكن أنا ومر والباء يميل كستان موجود وحنا أدقنا بشدة وحنا الله تجعلنا واحد كستو مقادرات أما إن حيابا حن أو فواحش كعب إن سادتي قلنا وان بجودنا إن أمضى نسيبه هيك ما يوحنا وجدينا قرار كنوع حنو كلاء مقادراتك أمن درهذا حشيشة يوحي لمن أقفي أنكو أرجع إن السيدنا وكلا وجلينه ومركب كوبا ضد أم فشلينه ومضى المجتمع أو شيء أيوة السيدنا وكلا الله صوبان دقة سوى هبل الله قرنا إلا رواكي مقادرات في حشيشة لو سوقطي كبعدنا محكمة أنا بدبني الله نحكم إن شاء الله المركب واحد ودي إن ذلك النوع عاصة إنه حيابها النوع عاصة وكلا كوان توبان كإلاليان أين نقول نقول bulshada waxaan uga mahad celinayaa sida wanaagsan ee quruxda badan ay nolol shaqeeyaan afar ilaa 10 saac habeen iyo maalin lambarradana way haystaan si ku habboon bay nolol shaqeeyaan amniga ayaga ka qayb qaata shacabka waa u mahad celinayaan aad iyo aad mahadsanyihiin hal sideed qof isku goomay fadhiyay muqaadaraadka isticmaalaya sideed qof hal mid waa midka dukaankiisa laga iibiyo ugu dambiga badan todobada kalena isku meel bay ku cabayeen ayaga laftoodu dad markay baashan marka la cabo qofka bini aadamka iska ka taga ayagoo dhacdhacaya dad sirdooni ay noo soo sheegeen anana meeshii baan ugu sameeyay oo todobada kale way isaga fadhiyaan xilliga saacadda abu 3 saac ilaa 4 saac hal sideed qof oo badan dhalinyarada waxay u baahan yihiin markay saan ku jira in loo wacyigeeyo maadaama boolisku ay ama u dambeeyay oo aad hawlgallada amniga u xaqiijinayo waxaa dhalinyarada shaqo abuur oo loogu talagalay dhalinyarada shaqo abuurka ay ugu tala gashay Jubbaland waxa weeyaan hal abuur badan baa jira waxa jira waaxii kalluumaysiga waxa jira waaxii sanitation waxa jira waxbarasho fara badan oo lagu tala jiro waxaad ogtahay dawladdeena hadda aan ku jirnay waa dawlad yar oo da'yar xaqiiqiyan markii wax qabadka ay qabatay ama sida ay ururka dhalinyarada lafteeda ay uga fakarayaan oo kala la fiiriyo iyo inta ay jirtay isma laha 100% waxay dawladda iyo hadafka guud ee Jubbaland ay ku wajahan yihiin ururka dhalinyarada in shaqo abuur badan loo sameeyo hadda waad ogtahay qoladan company-ga waamo oo kala la yiraahdo waad ogtahay dhalinyarada ugu badan dadka ka shaqeeya jidadka waxyaabaha ay dawladdu abuurtay ay kamid tahay marka waxyaabahaasna waa la qabtay waxyaabo badan oo kala la nabadgelyada 100% waxaan dhalinyarada si guud ugu baaqaynaa waan ognahay kuwa weerar yihiin dadkuna markay yaryar yihiin waxa laga maarmaan ah waxaan ognahay ururka dhalinyarada waa dadka la adeegsado haday noqoto dhinaca shabaab haday noqoto dhinaca dawliga marka dhalinyarada xaqiiqiyan maskaxdeedu waxaan 100% leenahay dhalinyarada maskaxdeedu ay tayuudahay dawladda si ku habboon hawlo shaqeeyaan wixii loo diray ee shaqo ah qabtaan ma aha muhiimadu in xashiishad iyo maandooriyo waxyaabahaas lagu noqdo qofku hadduu kalluun badda u aado oo uu baalboordeed samaysto waxaan uu kaga waantoobi micnaha ma aha in ama muqaadaraad dul fadhiyo ama xashiishad cabti
marka waxaan leenahay dhalinyarada waxaa ka waantooba waxaa idinka wanaagsan inaad baddiina iyo waddan khayraad badan baa ku jirnaa xataa qofku hadduu beer yar iska tabcado waa uu ku najix marka waxaan leenahay barnaamijkaas ka waantooba dadka iibiya maxaa baa ku daraysaa dadka iibiya waxaan baa ku daraynaa anagoo ku hadlay magaca booliiska ama ciidamada amniga ee Jubbaland gaar ahaan Kismaayo degmada Kismaayo gaar ahaan xaafadda Calanley waxaan baa ku daraynaa ciddii aan ku aragno ayadoo xashiishka iibinaysa anagu kulley marka ugu horeysa inaan soo qabanno waa waajibaad naga saaran marka labaad waxa weeyaan sidan oo kale aan ummadda iyo faxshiga u soo joojinaynaa marka saddexaad maxkamadda aan u gudbinaynaa maxkamadda ayada ka go'aan gaari laakiin waxaan leenahay dadka ayaga waxaa ka waantooba yaan la idinku arkin waa wax xun sumcadaada iyo sharaftaada iyo karaamadaada ay dhaawici iska daayaan leenahay dadka hadda xukun sidee loola maxkamadda aan u gudbinaynaa barnaamijka maxkamadda ka go'aan gaari iyada go'aankeeda